yar hadhow waxaan rabnaa inaan ka jarno waqtiga si aan inaga loo ogaanahay qaybtii labaad ku soo dhawaada waa barnaamijka unax walaalkaaga naxay iyo England show oo joogta England joogta Bushara Banday oo doctor maanta oo kala socon doontaan Bushara talk show iyo England show oo England joogta waan bedeli doonaa ciwaanka qaybtii labaad baynu maraynay qaybtii hore waxaad ka sheekaysay Bushara sidii aad adigu isu ilaalisay aad u ilaalisay jirkaaga iyo saas kawda iyo anigoo 3 kilo iga dhacday iyo 3 kilo ka marka daawadayaasha waatin u ballan qaadnay oo nidaahnay qaybta labaad idinka la socda hadda idinkii baan la socodsiinina warka sidaad hore dadku waxa weeyaan de horta waxaan qaybta labaad idinka si gaar ah idinku faahfaahinaynaa maadaama aad wixii ku cusubto doonaysid inaad la bilowday aan waxa ka sheekeynaa noloshayda iyo sida anigu aan caadi ahaan u la qabsaday 10 sano u dambeysay root aan sameeyo aan mar walba aan sameeyo laakiin adigoo kale markaad ku cusub tahay oo doonaysid inaad bilowdid waxa laga yaabaa waxyaabo fara badan baan doonayaa marka inaan tala yaro kooban idinka siiyo ahna idinkana caawinaya sidaad u dhuuban lahayd baruurtu sayglamba barnaamijkii hore idinku sheegtay maaha kaliya cuntada waa sida aad qaabkaad adigu aad wuxuu sameeysid waxyaabo fara badan socodka oo kale ayaa kamid ah waxyaabaha idin sheegay anigu inaan sameeyo adna ay muhiim tahay inaad sameeyso haddaba waxa jirta dadku hadii jaraale socodka inay ka caajisaan oo qofku markuu kaligi yahay uu caajisaya markiiba waxyaabaha aad sameyn kartid waxa kamid ah balansa saaxiibaad jeceshihiin oo sheeka taqaaniin oo aydan ku daalaynin oo dabeetana markaad socodka jaanta wada rogtaan 2-3 saacadood kaga soo jaraysaan taasoo kale aad ku caawinaysa nin hargeysa joogay baa wuxuu waxaan 300 kilo wuxuu yiri waxaan ka haystaa dad horta waxaan naftiba dadkii ka jiray dad dhuuban aragtay ina ma qayra iyo waxaas wuxuu yiri waxaan qaadaa jaado adduunyo cuntana oo si qaada wuxuu geeyaa buurta kala buurta naasaha blood buurta 7 jeer ka soo wareejiya ninkii wuxuu soo fadhiisay wuxuu ahaa 3 kilo malaha dad badan bay yaqaanaan hargeysa 300 buu ahaa oo keeji hadda wuxuu soo noqday 82 sidoo dad u waday dadkaasina nin jihaad iyo show daba socdeen war ma hayn ma ogtahay kaaga si daranay jimku wallahi lugtaaka jimku wax badan ma gooyo wallahi jimku wax badan ma gooyo talabaad mid baan idin sheegaya sidaan hore idinku sheegeen England mishinkan soo iibsanay gurigoon ku sameynaa marka midooda kale iyadoo sheekeynaysa markeeda kortaa markaas ka soo saacada kaga jarnaa jimku hadda ka hor adigii soo dhigay challenge Bushara anigu waan dhaafin waayay in number ilaahay og yahay laakiin Bushara saas intay u fuushay way 100 markaas challenge soo dhigtay qofkii 100 ka jara 1 hour 60 minutes ka jara aniga ilaahay baa ugu gaarsiiyay hay ka soco kuma sheegayno laakiin inaad jimka tagtid waan garanayaa dad fara badan runtiina adigaaga daawanaya waa runtaa wadi odhan doontaa dad fara badan baa intay lacagtii bixiyeen jimamka aan maalin laba ka badan tigin oo halkii kaga tagay wax kale ma aha qofku bixista iyo tigistaas ka wahsanaya timekii baa ka dhacaya xilligani waa traffic waxyaabo fara badan markuu tagay laftarkeeda dadkan kuma dhiiranayo because boring buu ku noqonaya dad uu yaqaan ma aha saaxiibo israacaya badi way yar yihiin marka waxa la qaatay mishiinka inta soo iibsatay inaad guriga dhigato dadna ad programada daaran kartaa telefishinka kala ku daarnaa kara halka anaga telefishin baba noo yaala sheegada ay qof maxaa tiri dagaalkii bedel soo dhacay baan ku tuuraa waxay ku tiri England jaawaco England saalax waxay ku tiri horta kaalay bal markaad kaliga imkaad ciyaari kartaa marka saxan ku yiri wax u baan daawada ama quraan kala iska daarta ama barnaamij baan daarta barnaamijyada mid boring ku noqon bilibitid waxaan ku boring kuma noqdo hadan doono dagaalkii bedel sidoo dhacay intaan geestan ku dhameeyaa saacad Bushara كانت إنه أنا أصحابنا هيو ناصر اللي يراهضوا أو باوحي له هذا إيجلن شين بانجلي أيو ريال جسوي ناصر مركز ناصر وصلنا هل كان سيف وصلنا كلي لا ناصر وانا ضد كمر والبان رجيسته يوصل ما شاء الله وصلنا ناصر ها ناصر وحي إيجلن شين بان بلاوي مركز أقول وانا يمكن لحد تسوي الله والله ناصر شين ناصر ما بقول هذا شين هذا مسؤولي ما يوان بلاوي أيو حرباي وعي ناصر لو بلود ساسيجي سبول عكتي برهرو بحي لما بلود بانتو ورناصر ما تكتي ما والله بري بان تجي ورناصر ما تكتي isagoo برهان تجي ay dalabadi bilood dhamaatay ayaan ogaa labadi bilood dhamaatay waa badi runtii marka horta taasi waa taa oo guriga hadaad keensato ama qof aad isku lug darsataan waa waxaad wanaagsan cuntadaada ayaa wax kasta cuntid xataa bedelka ugu faraha badan aad ku sameeyso waxaad ku badisaa cuntada wadaniga ah
cuntada wadaniga laana laguma naaxo cuntada wadaniga ah waxay samaysaa caloosha oo dhan bay kuu furfuraysaa caloosha waxyaabo fara badan bay kaaga faa'iideynaysaa marka wadanigoo kale markaan leeyahay gidirta maxay dhahdaan raxmarka cambuulo soortoo kale يعني أدو يس وقالي كله يعني عنتوينك وحيابها بحة معناتي عادو بتصطوي وناكسن تهاي وده كان هذا شوكتنا وحيابها أورجاني جالس ده هلا نبارد وكذا كده سيجوا فربضنا ومسرتي يجوا نوعي كله دونا معناتي أورجانيكا إن على وشاده ديفشيت كاجات كشقيسيسيد وwaxa koobaad ee ka ilaalinaya nabrada jirka ka ilaalinaya filinada jirka ka ilaalinaya gastriga ka ilaalinaya cimri degdega ka ilaalinaya skinkaagu inuu xumaado waa calooshaada si fiican u dhaqaaqdo maalintii mar iyo laba suliga gasho waxyaabaha ugu badan hadii ay adagtay calooshaadu cilado dhan taas ka koob cuntadiis ma shiidayso xanuuno kala fara badan way kugu imanayaan tusalahan waxyaabaha ugu fudud ee ugu simbalsanaad sameyn karto waxa kamid ah caagad biyaha kala bad haysataa xabad baamiya baad soo qaadaysaa wad kala jeexaysaa wad ku ridaysaa dadna baamiyihii uu ku jira caagadii Soomaha wada cabaysaa calooshaada si fiican bay u dhaqaaqaysaa waxyaabo fara badan oo noocaas oo kala ah haddaad u baahan tihiin comment-kayga la wadaag waxyaabo badan oo kala duwan baan idiin soo gudbin doonaa idiin soo sheegi doonaa oo calooshaada markiiba ku dhaqaajinaya xamarta oo kale dad milqaad iyo laba qaadatid xamarta maxay magaciisa xamarka lagu oran jiray xamarta waxa la yiraahdaa shay ma dhaanta gabadha sugmay waan ku dhaamay xamarta waxa la yiraahdaa qajaar ma hayna muxuu ahaa xamarta wuxuu ahaa أكيد دد بدنا بالحمر وقون دد بدنا بالحمر وقون ما قاعد كلام يلاحظه حمر 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 يا مي وصح حسوسني هذه قبل اللي ما دات برعي الأسعار بيد الله هضليه لكن رال نجا هذا وأنا حمرته إذا كلفت تركين بال يمكن حلين حمر مقال حمر ما له هلو يا بني وحي عديه حمرته حمرته محي القش يا وحساس يقوم بيه مركا تاس هذا اللي كذا يس لا واي حمر عوير أد بيدين عاونيسا أو يسمينها إن هدي أد كومنت كي يقولوا ذا قد تدخل هذه الشارع على الاستاذ كي أدو قعودان وحيا مفر بدن إذا هذا حمر بدكم ها ما إيران هلوي ولا أفضل أغاني حمرتي الحين برسيوة قري وحويان وحب قروه قري وحب وتي وركن السيوة ذي مركا يدينكوا حويان waxyaabahaas haddaad comment-kaygu la wadaagtaan oo ii sheegtaan cilada ugu faraha badan dhinaca idinka haysata inta yar aqoontayda ah ugu haleeyay doctoradu way idin la wadaagaysaa waxyaabahaas oo dhan baa kamid ah sideedaba hadii waxyaabaha vegetarianka aad basatid biyaha idin sheegayo 3 litir 2 litir aad maalintii cabtid 2 litir markaan ku leeyahay duwaad hadda baa ka hadlaya taas iyo barkeed baa laga rabaa ugu yaraana taas laga rabaa waxa soo dhaca calooshaada si fudud bay isku furfuraysaa xilliga dambana horaan idin ku sheegay cuntada xilliga dambe la cunaa xamar ii kaada si wada soo heliya xamar baan doonayaa ina soo heliya xamar igleen la hada xawartii kaga dhigtay xawartii bay idin raadinaysaa marka waxyaabaha fara badan waxaan rajaynayaa hada soo heliya xamartii kale idin soo helaya xamartii hadan keenays qajaar la mooyin soo maaha ma waxay qurux badan buu baahay magaceeda qurux badan waxyaabaha soo dhan ayaan insha Allah aad samayn doontaan oo aad sameynaysaan waxaan kaloo aan xasuustaa hadiya jeeraale dadkan waxyaabaha ay sameeyaan macaanka ay badsadaan maaha kaliya macaanka in loo diidayo inuu macaan kugu dhaco xalwo iyo qaxwo alwlee casarkii moogtahay waxyaabo fara badan oo noocaas oo kale ah macmacaanka dad iska dayso shaaha ma cabbi karaan ilaa 2-3 midho sokor ku dar macnaheedu maaha kaliya ku leeyahay macaanka ba macnaheedu waxa weeyaan baruurtana waa ka koob hada baruurta kaliya maaha inay fool xumo iyo dharka kugu fool xumaada iyo waxa aad u diidaysa caafimaadkaaga dhiikar maalintaas uu koob ka yahay macaan koob ka yahay cimri degdeg koob ka yahay dadka halka mareeda iska turunturotan hada laf dheer baad ka jabi allah ma aragtaa asxaan baan ku sheegaya dad buurantay de soo kala hadhi maysid saas lagu yara riixaya laf baad ka jabaysaa marka waxa weeyaan magaalada joogta xataa wax ka yara dhacaan oo loo baahdo in la cararo maxad ka ogtay adigu dhunidaada ku dadaal baruurtu runtii waa waxa weeyaan kafta marka laga saaro waa xanuun horti weeyaan waxyaabo fara badan ida ilaahay u deeq qadar tahayo dhamaantiin meel kastoo aad nagala socotaanba aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa asxaabta nagu xidhan dadka ha waa ina laakiin xamartii soo helaa xamartiina soo hesho ha bal sagal baan weydiinaa sagal baa maxay sagal musafiri nagu dhaanto ها iyada dhowr jeer xamar ku daba noqotay
sagal mustafa idin soo weydiinayna xamarta aniga iminka sagal garaacaya sagal mustafa barnaamij baan duubayna waxaan rabaa xamarta toos baad ugu jirtaa xamartaan rabnaa inaan ku weydiino xamarta xamarta ma taqaanaa sagal ay xamarta toos baad khadka ugu jirtaa horta si toosaad ugu jirtaa khadka waana life baana tahay xamarta ma taqaanaa magaca xamarta la yidhaahdo maya reer xamarku waxay u yaqaanaan xamarta yes والله ما أنت هذا واد قادتي كوبكا واد قادتي واكا سقل بانو قرعن سقلي سقلي waxaan markaan wixii sharaxaynay oo barnaamijkii sharaxaynay baa waxa martii waxa laale waxaan ku sheegno marka anigu da inaad labada safaaradood baa aad wakiil ka tahay safiir tahay oo laba xil isku haysa safiir xagga iyo safiir xagga aad iyo aad abaayo raqaya la laga dhahaa hargeysa markay timaadana waxa laga dhahaa maxaan idhahdaayay xamara la dhahaa dad badan baa ku daawanaya oo ka daawanaya channelada England show iyo Bishara show le adigana magacii hortaad isku bixisay muxuu ahaa habeen maalintii showyadii oo dhan baa is helay maya sagal waxa magacii muxuu ahaa sagal magac ba isku bixay tiri sagal iyo waa kaas marka dadka ku daawanaya maxaa sagal leedahay horta adaa Hargeysa jooga England show oo England joogta mataanahayga Bishara talk show iyo England show aad baan wada salaamaya waxaan idhahdaa halkaa hadiya habeen nagala socda update ahaada la socda dunida aad baan idin soo salaamahaya annaguna waa ku salaamaynaa dumaashiga iyo maxamed nagu salaan xaafadii maxamed cabdiweli nagu salaan beebigii yara nagu salaan reerkii asxaabtii kulli isku duubadaan naga waki reer africa oo dhan nagu salaan salaan kaliya laaba oo bilaa fayrisa oo bilaa koronadan anna hawada idin soo maraya waatay aad baa umahadsantahay sagalay aad baa umahadsantahay sagal mustafa xasan nuur ayay taasi ahayd waana mahadsan tahay raqayga raqay wallahi raqaygii bay soo turtay wixii qaybaha kale waan la wadaagi doonaa maxaad leedahay wixii aanu garan weynan xumaan nagama aha anigu waan yara ilooway waaban garanayay laakiin waan yara dhaafay laakiin sagal baa kaydahoo soo ururisa oo dictionary ha marka asxaabta saasaad noola socon doontaan jimkan orodka mar baan anigu ku ordayno sharaxayna insha allah aan idin soo duubi doonaa qaababka iyo say u socon doonaan say dhakhtaradu ka dhawaajisay marka dee saasaad nagala soconaysaan sisayno ballana aad iyo aad ayaan idin jecelnahay waanad ku mahadsantihiin sidaad noogu xirantihiin arrintii kale ee barnaamij kale oo aan rabnay inaan idin soo duubno inamaana soo wacay waxay yidhaahdeen inankii Bishara soo wacay wuxuu yidhaahday reactionka wixii uu keenay xanuunkii ba'naa ee dilaaga ahaa reactionkii keenay markaan in yar aanan ka soo rarey laakiin wuxuu guriga ku xareysnaanta reactionka keentay dhibaatadii ka dhacday waxaan ku yidhi ayaan idin la wadaagaynaa laysku bartay maalinta xigta xigta halkaa inoo ahaato nagasti bay tiri gabadhaan aqaana nagasti inoo ahaato